kormeerkan caawa fiidkii hore lagu sameeyay rugaha ciidanka booliiska ay ku leeyihiin gudaha magaalada Baydhabo iyo duleedkeeda waxaa caawa horkacay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha dawladda Koonfur Galbeed mudane Maxamed Yuusuf Axmed waxaana barbarkiisa socday taliyaha ciidanka booliiska gobolka Baay gaashaanle sare Amiin Maxamed Cusmaan Madaruur taliyaha saldhigga degmada Baydhabo Mukhtaar Dogodow taliyaha ciidanka CID-da ee gobolka Baay Maxamed Yuusuf Abdiraxmaan gudoomiyaha deegaan weynaha Awdiinle Ibraahim Maxamed Nuur Kalaay iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka qalabka sida iyadoona mid ay u dul istaageen mas'uuliyiinta rugaha ciidanka waxaana warbixin guud iyo mid gaarba ay ka dhageysteen taliyaasha rugahaasi si ay wax badan ay ugu ogaadaan baahiyaha haatan ay qabaan ciidanka iyo sidii loo dabooli lahaa loona kordhin lahaa dagaalka lagula jiro kooxaha 15 sano ee ugu dambeeyay dalkeena ka abuurmay waxayna ciidankan ay mudan yihiin in loo daboolo baahiyaha haatan ay qabaan ayna mudnaan lahayd in la dilacsiyo ayaga iyo saraakiishooda maadaama naftoodu ay u hureen ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadweynaha reer Koonfur Galbeed si ay ugu naaloodaan nabad iyo amni buuxa rugaha ciidanka iyo goobaha muhiimka ay mas'uuliyiintan caawa ay dul tageen waxaa ka mid ahaa rugta ciidanka ee Al-Ahmar Daafuur Xanaano Bakiin Tawfiiq Ceel Cabdi suuqa xoolaha iyo rugo kale oo aan halkan ku soo koobi karin marka uu soo ilaaday kormeerkan waxa warfadiyeenada dawladda la hadlay taliyaha ciidanka booliiska gobolka Baay gaashaanle sare Amiin Maxamed Cusmaan Madaruur marka hore inta ka salaamay saraakiisha ciidanka booliiska dhammaan ciidanka booliiska meel kasta oo tiruwan marka hore balaha Amiin wanaagsan tan kale mudane wasiir ciidanka booliiska aragdi meelaha xarumaha ka shaqeeyo xarumo badan marti magaalada gudaha dhax marti meel badan marti kulli meel walba ciidanka booliiska iyo surinay oo yoga shaqadiyo waajibkii iyo saaranayo gudayaan ciidanka booliiska marweel way inteegaya antoonay ummadda deegaanka Koonfur Galbeed iyo ilaaliyaan meedayso nimankan khawaariijda nabaddiidka oo ummadda dhibaateeyaan iyo surin intii ku horseedaan dhiijo iyo maajo in aftiyo u horahayaan hamiin walba way surin arday meelaha marti dhaxanta iyo roobka ka dhihay way waajibkii iyo saaranayo gudahayaan waajibkaasna way lanka askariga ama dadka mas'uuliyiinta ciidamada وفول بويلن كباهنيا سيدي نمكان خواريج لنك إرب ترفدي جودهان سومالي جارهان دولة جولات كونفور قلبت يا ميل يا ديارين ونون هديه نميراج إذن كبوليسك وإلى إذن جاء أو بالنقالان أنت وناي ميل كاستوري ممكن نبديت كأنك شاي أنت ونهمين إمالا ونميراج ونميلو لك شاي ونسان marka mudane wasiirka kordhaag uu ku kormeerka aan soo biday oo kadiska niidiida kama naqaan sidee bini'aadinka hadii si shaqeeyo oo meelaraay islay shaqeeyaan kormeeran walbadana ka qaldan ma aragaw laakiin madii lan ka bini'aadinka shaqeeyaan kormeeraw ya wali soo qaldan iyo wali sahan madaasad dareemo kor marka way balana hakula wasiir geekana shirka mislagi ani kala geeb bal iidiidan ka faraasana marka way balana ciidamada booliiska oo gobolka Baay qaybta booliiska gobolka Baay ka shaqeeyo mar walba way teeganya ama surinya intii onayo dhiijo idaanjo oo horan shacabkan ku nool gobolka Baay bulshada ku nool gobolka Baay way ka mahadnaqay sidii walaamaha ammaanka iyo marwalbi oo garab taageeray oo la shaqeeyay gaar ahaan gudoomiyaalka xaafado gudoomiyaalka laamo gudoomiyaalka waaxda waaxyaalka oo marwalba ciidamadii garab taageeyay oo sidii nimankan nabadiidka milayo ku dhuumadayaan iyo xogtii waxaan sheegay way balaraabay shukra ala waajib way may balasiin ku baanya saatiisi shaqeeyay iyo raysi kafayl bulshada Koonfur Galbeed gaar ahaan gobolka Baay ويسين قصدانه سياسة إدمني إنجليز شقة أسان يوري سكفايل أنتي إنجليز شقة يتان ونون ويبلغ قادنا إذا ماذا بوليس كويك شقة أنتي وانا برشيد هذا وايسان برشيد يوم ميلايس لصاحبا برشيد سيو حتى يوم عن أنسيهاي يوم ميلايس يوم عن أنسيان
miilo xaafado geesiska qaxootiyaalka oo bannaanka jaraan dadka bulshada intii la hadhow ay sidii ciidamada booliiska marwil way sheegay ama faray intii bulshada marwilba saaxiib iyo dhow iyo kuweeldaan maxamed yuusuf axmed wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga dowladda koonfur galbeed oo mar dambe hadalka qaatay ayaa ciidanka ugu mahad celiyay howsha mudnaanta leh ee bulshada ay u hayaan waa sida uu hadalka u dhigay الرحيم إلهي سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله بعد الله عاوة تاريخ التهاي لبي الله باتنكي بشكل تبنات لبضك مفر الله باتنكا وحان مقالة بيضبو سكدي سعن وصما إني كرمير قوة كدجيهن أمر رواه عندما البوليس كدجيهن هنتي وحان كسر إني وح أذو ونكسن عندما البوليس oo runtii u hawlgalaya sidii ciidamada militariga ah oo shaqada ayaa runtii shaqo magaalada laga dareemay ay taayaan soo aragnay qofka bil aadanka ana in la kadiyay waxa ka mid tahay shaqada quruxdeeda runtii waxaan aad ugu mahad celinayaa booliiska gobolka Baay iyo kan degmada Baydhabo runtii oo si aad u qurux badan uga shaqeeyay amniga degmada Baydhabo caawa runtii goobo badan waxaan soo marnay kala duwan oo goobaha laga difaaco magaalada Baydhabo runtii wax qurux badan aan ku soo aragnay askar heegan ku jirta roobka iyo dhaxanta iyo busta u jiifta inay shacabkooda ku nool guud ahaan gobolka Baay ay ku seexdaan si amniyo oo qurux badan gaar ahaan degmada Baydhabo runtii saraakiisha iyo askarta dhamaantood waxaan uga mahad celinayaa shaqada qurux badan ay hayaan si gaar ah taliyaha qaybta gobolka Baay iyo taliyaha saldhigga degmada labada kormeerka lagu jiraan Baydhabo aadaan ugu mahad celinayaa runtii waan ku dhiirigelinaynaa shaqada ay wadaan kormeerahan ilaahay idinka joogteen noqon doona ilaahay idinka sidii ilaahay raali ka noqdo guud ahaan ciidamada kala duwan ee qalabka sida koonfur galbeed waxaan leenahay insha Allah shaqadaas aad wadina si laba jibaaro kuwa Baydhabo jooga iyo kuwa gobolada kale ama degmooyinka kale ee koonfur galbeed joogaba shaqada aad wadin waan ognahay alla si laba jibaaro insha Allah hadii ilaahay raahdo gacanteennuna midigtaana waxay saaran tahay khawaarijta u diiday ummadda Soomaaliyeed harsiga iyo hoyga iyagana in harsiga iyo hoyga aad u diidaan ee rajeynayna waaba u diidana si laba jibaartaan hadii la raali ka noqdo gacanta kale aad ugu adeegtaan bulshada Soomaaliyeed ee danyarta sidoo kale waxaan rabaa inaan iraahdo bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan guud ahaan deegaanada koonfur galbeed si gaar ah degmada Baydhabo runtii amni qurux badan ay haysatiin amniga qurux badan ilaahay ka soo waxa suura galiyay idinka iyo laamaha amniga waxaan rajaynaynaa bulshada ku nool degmada Baydhabo inay si dhow ula shaqeeyaan laamaha amniga si khaas ah ciidamada booliiska oo aha ayagu ku dhex jira bulshada si khaas ugu dhex jira bulshada inay si gooni ah ula shaqeeyaan hadii ilaahay raahdo si guudna ciidamada qalabka soo dhan ay ula shaqeeyaan xogta keenaan ninka tuuga guriga garabkaaga degan ku dhuumanaya khawaarijka bambada wata adigu ku dilayay walaalna ma aha ehelna ma aha asxaanna ma galo fadlan soo sheeg soo wargeli laamaha amniga goobo laga xariiray leeyihiin lambar gaaban ay leeyihiin idanku ilaahay booliiskana soo sheegi doono goobahaas iyo lambaradooda waxaan rajaynaynaa bulshada ku dhaqan degmada Baydhabo guud ahaan koonfur galbeed gaar ahaan degmada Baydhabo caasimada ku meel gaarka inay soo wargeliyaan wixii cadow ay arkaan waan laga jawaabi doonaa ilaahay idankiis bulshooy la shaqeey laamaha amniga si khaas ah booliiska haloola shaqeeyo ilaahay idankiis aad u maasantihiin sirjito TV-ga raadiyaha dowladda koonfur galbeed Baydhabo.